haweenku ma aha feedha aadan oo keliya balse waxa ay yihiin garbaha lafdhabarta iyo awoodda dhaqaajisa halganka nolosha qoyska waxaanay u taagan yihiin boqolkiiba 85 awoodda ka shaqeysa qaaradda dhabarkooda waxa ku nasta caruur koraysa waxaanay ku ilaaliyaan dhaqanka waxaanu dhowr barnaamij wax kaga ogaan doonaa mid ka mid ah dhaqamadaasi qaaradda oo ah xiriirka guurka iyo qoyska ilaa maantadan aqlabiyadda haweenka Afrika ee ku sugan magaalooyinka iyo miyiga riyadooda ugu weyn waxa weeye inay yeeshaan nin wanaagsan iyo caruur tiro badan When I was 16 years old, my parents said to me, you get married. Rahela Girma waa 23 jir tan iyo intii ay 16 jirka ahayd waxay ku noolayd Herer oo ah magaalo yar oo Muslin oo ku taala bariga dalka Ethiopia da'daas oo ay tahay waa inay guursataan nin ay aabaheed ilmaadeer yihiin waana dhaqankii diktaatooriga ahaa kaasoo qaban qaabiyay gaaray xilligii guurkana waxay u baxsatay Addis Ababa halkaas oo ay ka shaqo gashay baar ama maqaayad ku taala faras magaalaha caasimadda Ethiopia xilligan waxa ay ku hawl gashaa oo ay tahay mid my uncle before he come in the house he bring me presents one day my parents are sleeping I get up in the morning I left my home, I take a taxi. I go there in the morning. I left my home, I take a taxi. I go there radio. I take rain. I'm coming at this. After if I saw this, the city is very big and beautiful. I think myself, I'm free. After I have little money, I must go in hotel. I find a job after I get this restaurant, Milkos restaurant. We work each other one guy. One day he asked me to invite to me. We go together. We make a relationship. Now we live together. He helped me. And I love him. I can tell you that the best thing that ever happened in my life. What I like most about her is that her sense of independence, and she's so different from the rest. What we know, most Ethiopian women, tend to be submissive towards their husbands. No, I'm not. No, I'm not this. Nobody knows me. I can do whatever. I think I'm free. I have good memories in Harar, like a juggle. My friend does. I think I come back. I go back in Harar. For me, Harar is like a jail. I remember my parents. I go back in Harar. I prepare to live in Addis. Addis is for me good. Ethiopia
Itoobiya waa wadan Kirishtaan oo ay ku xeeran yihiin wadamo Muslim ah. Hererna waa magaalo Muslim oo ka binaysan bartamaha wadan Kirishtaan, balse magaca Herer waa magaalo ay adag tahay inaad magacdil ku samayso, waxaanay ka mid tahay afarta magaalo ee barakaysan ee Islaamka, waxaanay leedahay 100 masaajid iyo meelo qadiimi ah oo soo jiidasho leh. Muddo qarniyo ah Herer waxa ay tiir dhexaad u ahayd ganacsiga Itoobiya iyo xeebaha Soomaalida si loo badbaadiyo oo loo ilaaliyo barakada iyo sareynta ganacsiyadeed ee Herer. Herer waxa ku xeeran Kirishtaan sanadkii 1854 markii Richard Pedath uu gudaha u galay oo uu 10 cisho u joogay Herer la tashi. Waxa jira jid loo saabiri karo marka la eegayo hoos u dhaca magaalada markii halkaasi awoodihii reer galbeedku ay u socdaaleen haddii ay fursad u ahayd iyo haddii kaleba. Isla waqtigaasi Herer waa magaalo kala qaybsan halkaas oo dhaqanku uu diidan yahay casriyowga. Waa magaalo qabanqaabisa guurka oo leh dhaqan qariib ah. I will never allow my daughter to return. If anything keeps the family and the community united, it is tradition. She has betrayed this and made a fool of her family. I supported her ever since she was a baby, paying her expenses all her life, and she ran off with the money I gave her. Ali waxa uu ka shaqeeyaa dawaarle wadada ku yaala nashqadanina waa mid qadiimiya oo aad looga tixgeliyo Herer, taasoo raggu inay shaqadan qabtaan ay iyadu dhaqan kale tahay oo waxa shaqadan iska lahaa dumarka. Sidoo kale waa nin dhaqankii hore aad ugu adag oo go'aan adag. Caadada qabanqaabinta guurku waa mid soo jirtay qarniyo oo ay u baahdeen boqortooyooyinkii, xataa caadooyinka iyo dhaqamadu waxay ilaa hadda ka sii jiraan dhammaan Afrika. The most important thing is that the man should be good to the woman, not how the marriage is made. Of her 2 sisters, one has married of her own accord and the other in the traditional manner. Both of them are happy. I could say much about failed marriages. Some were for love and others traditional. Rahela hooyadeed waxay ka shaqeysaa ay iibisaa jaadka. Qaadku waxa uu leeyahay mirqaan waxaana lagu cunaa dhammaan geeska Afrika. Qaar waxay u cunaan inay si fiican ugu shaqeeyaan. Qaar ayaa sheegay in ay wax ku bartaan. Xaadirkan ku soo dhawaada munaasabad aroos iyo damaasho.